baxoola soo xaday geel buu soo xaday geelii way ku baxeen markaa buu nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam wuxuu yaa rasuulallah meel heblaayaan geel ka soo dhacay buu bari hore waana igu tageen haddana waxaan diyaar u ahay buu in xadka la mariyo la iga jaray buu tuug maxaa lagu sameeyaa markaa was-saariqu was-saariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah ila aakhir al-aaya gacanta in la gooyo diyaar u yahay laakiin aakhirada in cadaab lagu aakhiro lagu cadaabo ka baxsanaya tadamba iyaka la weyn tan hore lama weyno markaa buu nabigu halka ay fadhiiso dadana rag buu nabigu diru yiri reeraha dhulka degan rag uga yeedha waa loo yeedhay markaa bay nabiga u yimaadeen hal fiikum as-sariqa buu nabigu yiri tuuga ma nagu dhacdo xoolo ma la naga xaday bari ha intaasoo neef ba muddo xilliga laga joogo la naga xaday markaa buu nabigu waa ka hadaba ninkii naga xaday cidna ma soo qabanin alla ka cabsi qalbigiisa ku jira ayaa keenay xadka la marina daawada buu nabigu yiri qisaas qaado gacanta ka gooyay buu rasuulku yiri markii la qaaday ee halkii qisaaska loo waday ayaa nabiga ilma ka daadatay calayhi salaatu wassalaam marka cali ibn abi talib baa nabiga ag fadhiyo ku yiri yaa rasuulallah maxaad la ooyeysaa noo sheeg wuxuu yaa cali maxaan u ooyeyn nin asxaabtaydii kamida ummadaydi kamida ayaa horteena gacmaha lagu jarayaa markaa buu nabigu yiri nabi allah adaa ka gooy yiri ma ka dhaafnaa wali laga ma gooyne markaasuu yiri may waa xukun waa qisaas waa xadkaas waa amar ilaahay weeyaan xadka ilaahay in la fuliyana anu waanu taaganahay buu nabigu yiri laakiin inta aanan maaragtaan aniga la soo gaarsiinin isa soo cafiye buu nabigu ninka soo cafiyo iska kiisamaha isa samaha gacanta laga gooyay markaa gacantii laga gooyay buu alxamdulillah gacantii oo go'an buu cirka u taagay isagoo ilaahay ku xamdinaya markaasuu intaas ayaa rabtay jirka oo dhan naar inay ku tuurtay iyadana abaalkaygii mariyay buu يا الله بدكلو صحابة كمدا أيا وقت الظهيرة حل وقت الظهيرة عداد أي كل شيء أو مقالة مدينة أو نحس عضو أيا إن يربى أو كس يا كسور بحد الجبر ير مركبه قبصة أو كذا وحكى لكم السمين مركو مساعد كي تجيبوا نكيف ساحوا دم ببعض قشي دم ببعض قشي وارد كشوا هنا كان دتك أنا مات مسلمين تقاركود ذنوبتي كبائر كي يكون كل حجر حدا أيا قصلا يعني برجينا يعني تسلمها كبائر زندي توجدي شركي كبركي سحركي بلايو يكو كبائر ذنوبتي ووينت سلك دحدد ugu dhex jiro dhex fadhiya ay isku haystaan inay waxba sameyn ba ay asxaabu muhammad ah inay yar oo dariiqa ku helo labada dhinac uu ka dhunkaday ayuu ka seexan waayo dambi weyn baad gashay ilaa uu nabiga u yimaado kaleey salaatu wasalaam يا رسول الله دم بقاسان قال حد كهلا يمريو برقابو النبي يقول فريسو وحي قام مركز سود دقيقة إلا القرآن كشريعة دين إسلامكم هل مركل يمسوا ودا دقيقة كل بأنت أمضوا أي قادة كرتين شريعة سود دقيقة كل بأنت إيمانكم زيادو أي قفكم شريعة قادة كرا كل بأنت شريعة أي قادة كرا أصحابته أي شريعة لسود الجنائي وحتى تحريم الخمر خمر مركا لا حرمي مركلي لما حرمين جرانجرا ايو صوبر تحريم جرانجرو وحا الله شيغي او لا يدي منفعنا وليه هي او قرانك ومن ثمرات النخيل والاعنام تتخذون منه سكرا وحي كسميان صخرده خمرك كسميان بقرانك الله شيغي markaas haddana la yiri xukunkii labaad ee ku xigay wuxuu ahaa la yiri la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun warbal salaada oo haymanina inkoo sakhraansan ila aad ka ogaanaysaan waxaad leedihiin masaxda mise waa qalad haddana waxa ku xigay ila la yiraahdo hal antum muntahun ma ka reebto masan khamriga wala xarimay be sida darteed ba shariicadu kolba inta ay ku qaadi karaan ayaa shariicada ilaahay soo dajinayay markaa buu nabigu ninkii ku yiri fariiso dadna markaas aayadan quraanka nabiga ku soo degtay waqimis salata tarafay an-nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yudhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin
ilaahay baa le salaada shanta waqti ooga gafafka yaryare inaga dhacay salaada aad la timaadeen ee gadaasheeda tukateen ayaa gafafkii yaryaraa ilaahay ku kaxaynaya oo ilaahay ku tirtiraya dalika dhikra lidhaakiriin markaasuu ninkii saxaabigii u farxay markii la cadeeyay lagu yiri gafka yare ka dhacay salaada iyo weysada qaadata ilaahay kaaga meedhayaaba markaabuu iyo nabiga u yimid ali hada ya rasuul allah aayadan maani keligoon bay soo degtay may bal jamiic ummati kullihim baa nabigu adiga kuuma soo degay keligaaye ummadayda oo dhan bay aayad u soo degtay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam aayaddaas waxa u soo degtay ummadayda oo dhan marka dunuubtooday ka baqayeen iyagu dunuub macaasiday ka baqayeen lana macsiyadu noloshaada barakaday ka qaadaa waidaa radiitu baaraktu walaysa libarakatihi nihaaya waidaa cusiitu qadibtu waidaa qadibtu baa ilaahay yidhi cidday raalli gelisay raalli aan ka noqdana noloshooda waan barakaynayaa barakadayduna meelay ku dhammaato male baa ilaahay yidhi waidaa cusiitu qadibtu baa ilahay yidhi haddii aniga lay caasiyo oo amarkayga la diido amarkayga la qaadan waayana waan cadhoon baa ilaahay yidhi waan cadhoon haddaan cadhoodana cidda iga cadhaysiisay waan lacnadayaa lacnaddu waa maxay naxariistaydaan ka saarayaa weeyaan wa ina allacnata minii tabluqu saabica min alwald lacnadaasina kaa iga cadhaysiiyey ku koobnaani mayse ilaa ilmihiisa 7 ayay lacnaddu sii socon baa ilaahay yidhi ilaa tafiirtiisa 7 bay lacnaddu ka muuqan barakaduna way riiq dheeraataa qofka way barakaysaa cimrigiisa taacaddu qofka way barakaysaa noloshiisa halka macaasiduna qofka noloshiisa barakada ay ka qaadayso dulqarnayn khidar iyo muusa calayhi salaam markay tuulada ay soo mareen tuulada ee martiqaadka ay weydiisteen ee martiqaadka loo diiday khidar calayhi salaam wuxuu bilaabay darbi duusanaayo magaalada dhinaceeda ku yaallay buu dhisay nebi muuse su'aashaas weydiiyuu ku yidhi law ittakhadta calayhi ajraa iyo kuwa martiqaadkii bay noo diideene dayrkan aad bilaasha ugu dhistay maad mushqaayad kaga qaadatidaa buu yidhi haddaba markaasuu yidhi haadaa firaaqu baynii wa baynik سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة وأما الجدار وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته من أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا دربنا دسي waxaan u dhisay ma kuu sheegaa haa hoostiisa waxaa ku jirtay khasnad dahaba ku jirtay ciyaal yaroo agoommo ah oo magaalada jooga ayaa dhaxal waxaan ayaa looga dhinto waa calaamad weeyaan marka calaamaddii hadday ka baaba'do heli maayaan marka rabbigaaba igu amray anigoo rabbigaabaa doonay inay iyakoo qaan gaadhay ma dhow toole oo calaamaddii intay soo eegtaan ay la soo baxaan maaragtaan khasnaddii dahabka ahayd waxaana sidaa u yeelayna waa maxay buu yidhi laana aabbahood baa nin wanaagsan ahaa buu yidhi aabbahoodaa la sheegayay bay mufasiriintu ku sheegeen waa awowgoogii 7 baa nin saalixa ahaa maadaamuu awowgoogii 7 uu nin wanaagsan oo ilaahay xidhiidh fiicanlala u ahaa ilaa ilmihiisii 7 baa loo ilaalinayay wax walba loogu ilaaliyey marka macsiyadu nolosha barakaday ka qaadaa halka taacadduna nolosheena ay baraka soo gelinayso macsiyadu barakada nolosha ka qaadi lidalika ilaahay inaan adeecna innaka u baahan yaa man laa taduruhu macsiyatii walaa tanfacuhu طaacatii هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك إنك أنت الوهاب
نبينا عليه الصلاة والسلام بأورنجري يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة، يا من لا تنفعه طاعتي ولا تضره معصيتي. إلها طاعة ديدنا وحبا أكردنين، عسيان كيقنا ما ركتاني أوسن وحبا أدمينين. هب لي ما لا ينقصك بأورنجري واحد كان وحبا كادمين إله وأنا قيسي ومعي وادم داف، واغفر لي ما لا يضرك waxaan adigana wax ku dhibaynay oo anigu aan geystayna ilaahu iga dhaaf oo jiro macsiyada. marka taacadeenu inaka waxna tari mooyaane ilaahay waxba tari mayso. dadkoo dhan ilaahay caabudaan waxba uma ziyaadiyaan, haday wada caasiyaana waxba kama naqsan. man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha man ihtada fa inma yahtadi li nafsihi ومن ضل فإنما يدل عليها من تزكى فإنما يتزكى لنفسه من يبخل فإنما يبخل عن نفسه وما تنفقوا من خير فلأنفسكم من عمل صالحا فلنفسه قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. قرآن كإلهي كل شيء حق الرعا بصائر بحق إلهي النوغة مدى بصائر وقرآنك وآياتك قرآنك وسنة النبوية عليه الصلاة والسلام قفك شريعة إلهي السمد لأنه كان الراعنا إيه أركبها إلهي نفتي سو طريقة سحظة هو أركو تصي قفك إسكا كاين دبالنا إن بالكاس يساقو قصة نقوم بإلهي. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. غني سجود دينا صلاة دينا قرآن كينا علم كينا مدارس تاندقينو دعوة داك الشقينينو وعد قاد جيدينينو وعد قاد دقيسانينو حج كان نصعنو زكاة ديبينو صدقاء بحينينو إحسان كان سمينينو إلهي أمباهنو عز وجل لكن عملك إنكم وإحنا تريا يقوم أيوة حضريا أذيك وحكو تري إلهي وغني غني 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 وكد يقطونيها وحصولا. هذا عبادة إلهي وحكر لي سبا ليلي ملايك وحو إلهي ليهي المصبحة قار كود أي تصبيح لتاقيهين تصبيح قار سجود لتاقيهين قار روح كوسيهين قار قرآن آخرين أيام قار عرشق أي هيام قار أي استغفار إنك أي نوض البيام قار أي أويان للمين أيام ملايك إلهي أن عاسيه سفدود أي تهي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إلهي مع عاصيان أمرك إلهينا عز وجل سيد الله أمري بيؤفليان يكون صلاة كما دالان قرآن أخرس كما دالان سجود كما دالان عبادة كما دالان ملائكة قار وحال يري مالك ملك قال أبوري إلى ساعة قيامته عيدا عيسو قار باصدا الركوع سبال يري ركوع ده وحي كسوك عيان مالك قيامته قار وسجود سيهين سجود وحي كسوك عيان يوم القيامة قار لقوحي كالهيام وبوقي خلقك كل من يبو أفوف أيو أفوف إلا إذا هذا أيو سوق يا كإسرافيل عليه السلام هذا مالك القيامة هم بشغلة خبروا دقائق أنت كلام دقائق يلي صدق أبو تاجية قار قرآن كآخرنا يان سفرة الكرام البررة ملائكة سقران بآخرين يكون عبادة إلهي أي قد وادان بقرآن أخرس قار مؤمنين تقول دعيان قار وحي كل ضوافا بيت المعمور وبيت تضبط سبب دشيدو كويا لابو أيور ابن عباس كعبدو كتو سيهي حدو صودع لهانا كعبدو كصودع لها في كل يوم وحكون دوافيسا تضبط كن أو ملك بكون دوافيسا إيادون أني مرلا بعد يكون صور نغنى ساعة قيامة كن عندو تاني سيو سوغيانو تربضي درادي عبادة هذا النقطة وانا نقع عبادة بدنيا عبادتنا سهوي با كبوحا صونكنا سهوي با كبوحا صلاتنا قفلت با كجرتا ذكرنا قفلت با لا سوتا قران اخرسكنا ما ركتاني سهوي با كجرا
diinteenna maaragtaan cujbi baa soo galay xataa cujbi iscajabin malaa'ig waxa uu ilaahay leeyahay caza wajalla habeen iyo maalin ooyeyso ilaahu naar naga badbaadi leh وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله سمعه وإن منها لما يشقق فيخرج منه موسى عليه السلام نبي موسى أيا أركض نجح نلك الدنيا الله وبينك صباح حيان مركزا إلهي نبي موسى وحو مقشي حين نجح كبحيا حين جوع marka Muuse alayhi salaam baa ya rab iidan buu Allah hadlay dhagaxii baa laga hadliyay nabi Muuse dhagaxii la hadlo ku yiri xaad la ooyaysa bali sheeg biyahan ka socday maxay yihiin markaasuu ya Muuse waxa loo yaa waa ilaahay cabsidiisa naar baan ka baqaya waa dhagax بنص القرآن إلهي baa ku sheegay aayadan iyo akhrinay wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruj minhu al-ma' dhagaxda qaar baa dildilaacaya oo maxay la dildilaacayaan ilaahay cabsidiisa la dildilaacayaan nabiga ka soo boodaya markaa waa dhagax markaasuu nabi Muuse ku yiri waa maxay biyahan ka soo baxaya markaasuu waa oohin maxaa loo yeesaa ii sheeg naarta ilaahay baa ka baqaya wuxuu adigu mukallaf matid dhagax baa tahay jiniya isba naarta lagu gurayaaye adigu dhagax baa tahay maxaa loo yeesaa ya Muuse miyanan maqal waquduha an-nas wal hijara waquduha an-nas wal hijara in naarta jahannama dhagax iyo dad lagu hurin doono miyanan maqal markaasuu yiri haa de waxa marka la hurinayana naarta dhagaxda yar yar baa lagu guraa kuwa yar yar baa lagu guri doona sida xaaba marka la doono in la shido kuwa lagu horeysiya awska yar yar marka Abu Allah hadluu man anta adu ayata ii sheeg Musa kalimullah bana Musa kalimullah bana markaasuu yiri xaq ilaaha kaliim ka dhigay ilaaha kaliim hadalkiisa ku maqashiyaan kugu dhaariye ii shafaacad qaado ilaahay iga erga dalab in ilaahay naarta anigu iga badbaadiyo markaasuu nabi Muuse ilaahay u bariyay ilaahay ba la soo hadlo ku yiri u bishaare naarta waa ka badbaadinay isaga markaasuu u sheegay abshir adiga ilaahay naarta waa ka badbaadiyay muddo kadib buu hadana nabi Muuse alayhi salaam dhagaxiyo sidii uu u guuxaya oo biyihiina ka socdaan buu halkii ku soo maray markaasuu la hadlo wuxuu ku yiri waa kii naarta laga badbaadiyay ku shafaacad qaade ku warramee sodiga wali oo intii wadama markaasuu maalinkii hore oo intaan ooyayay naarta cabsideedan la ooyayay hadda waxaan la ooyayaa buu yiri waa shukran ilaahay mahadnaqiisa la ooyayaa buu keenay farxadda marmar qofku lama ooyo ya لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وكي قارئوا أن قلت جنيه بعد صلاة المغرب كي لو أنزلنا حلقة القرآن كان أن بشر كسود جنيبا إلى هاي حتى بورها كسود جن لها القرآن كا وعلى أرك لها بورها أو دلدلاعيا بورها أو دلالعيا تدوب الجبال بل هذه القرآن كبورها لقد جن لها بوره باليدي هي سيدا نحاستو أي أدلالي صدق كسود نحاستو أدلاليو أي بوره أدلالي لهايين لكن قلبي قلنا هذاك ما